بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال ميل كستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena sheekooyinka odaalaaba kala socotaan careedag media barnaamijka waxa idin soo tabisa aniga waa Muwaayib Garweyne sheekadan maanta idin wadaa waa saddex wiil oo walaala ah oo saddexduba ay dhigan jireen ama ay gaadheen heerkii loo yaqaanay dugsiga sare ama secondary level waxa dhacday markii heerka la gaadhay in mid ka midii uu diiday inuu galo dugsiga sare oo ah kii ugu yaraa wiilasha walaalada waxa dhacday in waalidkii ay maagaan ama ay maxal dhigi jiray ay u arkaan xaqooda qof bilaa qiimo ah oo diiday waxbarashadii waxa dhacday markii ay maalmo iyo sanado badan ay isku dhiibeen oo ay dhameeyeen namadii 4 sano ee dugsiga sare ayaa waxa dhacday in inankii yaraa ee diiday waxbarashada dugsiga sare inuu isagu yaqaanay cilad saarka iyo furfuridda wax ka ogaanshaha baabuurta ka bacdeen waxa dhacday markii nimadoodii labadii kor uga roona ay dhameeyeen waxbarashadii secretary-ga ayaa waxa la waayay in heerkii jaamacadeed ay u gudbi lahaayeen in labadooda laga wada bixiyo ka bacdeen waxa dhacday in mid ka mid ah lagu raahdo midow waxbarashada jaamacadda kale maadaama waxbarashada lacagta ee maxal dhigi jaamacadda ay aad qaali u ahay waxa dhacday inankii yaraaba yidhi in hooyo yaab waxba uu ka hadhine labadaba aniga ka bixinayo kafaalo qaadaye iska daa inankii yaraa indhaha mar kale waalidkiisu wuxuu ka noqday qof la jecel yahay ixtiraam loo hayo macnaha waxa dulucda sheekadu tahay inaan qofku ama dadka wada dhashay aan isku jeclayn ay kala duwan yihiin sidoo kale aan isku hamiye isku meel taagnayn marka dadka oo dhani ma wada noqonayaan in dhaqaatiir maxaa la dhihi jiray ee social worker ama adeegayaal bulsho sidoo kale ma noqonayaan saxafi laakiin dadku waxay mar walba dadku u haystaan ama dadkeena bulshadeena dambe inay dadku maxaa la dhihi jiray qof kasto wax bartay ama maxaa la dhihi jiray aan skills garanaynin oo xaqan aqoonta iyo qalinka buuga inuu wax cuni karo oo wax qabsan karo marka waxa leenahay fikradaasi aad bay u qaldan tahay qofka ha loo tixgeliyo doorashadiisa doonistiisa iyo wuxuu u baahan yahay haddaba na soo raac si aad noola socoto sheekooyinka kuwan xiga ee xiisaha badan aad baa idin salaamay